marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaan kadib qofka aan la hadlayaa waa adiga qudhaada. adiga hadda qoraalkan akhrinaya qudhaada ayay kugu socotaa qormadaydan, waana ku muhiim inaad si taxadar leh oo deganaani ku jirto u akhrisid. ogow tani ma aha maaweelo, balse waa xaqiiqo ka hadlaysa safar lama huraan u ah noloshaada. sida uu lama huraanka adiga kuugu yahay ayuu aniga qudhayda iigu yahay mahuraan, balse iima cadda inaan noqon doono isku duulimaad. inkastoo safarka aad ku qasban tahay, haddana waxaad ku baxaysaa casuumaad laguu soo diray oo mudaysan. casuumaaddu waxa ay leedahay waqti go'an oo aan waxba ka bedeli karin, kana cudur daaran karin. waa qasab in aad dhoofto marka la gaaro ballanta ku qoran warqadda casuumaadda. in aad diyaar garowday iyo inaadan diyaar ahayn macnama samaynayso. diyaaraddu waa ay ku qaadaysaa xaalad kasta adigoo ku sugan. daqiiqad walba saacaddu waxay ku sii siqaysaa waqtigii aad safri lahayd, haddana adigu marnaba ma ogid goorta aad bixi doontid. dhowaa iyo dheera kuuma kala cadda goorta aad dhaqaaqayso. hase yeeshee mar walba safarku waa kadis, wuuna murugo iyo xanuun badan yahay. dhabtiina waa lagugu dul ooyi doonaa haddii aad nasiibkaas yeelato. inta badan adigoo aan macsalaameyn dadka kuwii aad ugu jecleed, adigoon isku duwan howlihii kaa dayacnaa, adigoo aanan ebyo tirin hawshii aad bilowday, adigoo aan la ballamin asxaabtaada iyo inta howle kaala dhexayso, adigoo aad u kala daadsan oo aan safar diyaar u ahayn, ayaad arkaysaa adiga oo taagan iridda diyaaraddii aad raaci lahayd. iridkaasi gelid mooye ka noqod ma leh, albaab dhinaca dambe ku yaala oo laga sii baxo ma leh, cid diyaaradda ka soo degayso oo aad fariin u sii dhiibto ma leh. waxaa muhiim ah inaad ogaato arrimahaasi. casuumaadda aad ku safri doontid waxaa kuu soo diray allaah. ciwaanka ajalku bixid mooye ka baaqasho ma leh. galka casuumaadda ay ku jirto waa sakaraad. fariinsidaha casuumaaddaasi kusoo gaarsiin doona waa malakulmood. tikidka aad ku safri doontid waa geeri. diyaaradda aad raaci doontid waa handool. dalka aad ka dhoofayso waxaa la yidhaahdaa adduun. dalweynaha aad u kicitimayso waa aakhiro. halka aad gashiinka taransidka ku noqon doontidna waa barsaq. garoonka ay diyaaraddaadu cagadhigan doonto waa qabri. garoonka ay cagadhiganayso diyaaradda ku sidaa waxaa jooga saraakiil laanta socdaalka ee qabriga qaabilsan, kuwaas oo hubinaya in baasaboorka dalkugalka iyo fiisaha aad ku safrayso inay saxan yihiin iyo in kale. garoonka ay diyaaraddaadu ku degayso waa mid adiga ku gaar ah, balse saraakiisha joogtaa ee labada ah ayaa qaabilaya qof walba ee soo raaca duulimaadka isaga gooshaya dalalka adduunka iyo aakhiro. waa in aad maanka ku haysaa qodobadan. saraakiisha laanta socdaalka joogtaa waa malaa'ig. tiradoodu waa 2 oo keliya. magacyada waxaa la kala yidhaahdaa munkar iyo nakiir, waxaana ay ku weydiin doonaan 3 su'aalood oo muhiim ah.